السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي الأمانتينا ميل والبعض جوكتان maanta waxay soo bandhigaa warar kala duwan oo laga yaabo in aad waliga maqlin fiidiyoha oo sida oo kale waxa la iskaga soo qoraa warar oo laga yaabo in aad waliga maqlin 1 2 3 saas laakiin magac hada u heesid hoos igu soo qor commentiga waa akhrina insha Allah tookada labaad fiidiyogan soo saaray magacaas iyo lambar aan u yeelan insha Allah mid kale meeshan kor mise dhinacan waxa idinku soo baxay su'aal see uu ku fiican yahay channelka marka su'aashaas igu soo jawaab adoo mahadsan marka hadda waxaan bilaaweynaa fiidiyoga ila daawo barwaaqadan dalkaygiyo dalkaagiyo berihiyo wabiyad doqonbaan ogeene aashaagu macana nin la yiraahdo nil wuxuu soo degay xaafad cusub xaafadii wuxuu ku arkay qof walba oo akmaro uu salaama dadka xaafada degan dhan way salaamayaan markay arkaan assalaamu calaykum salaam ma yusuf gaalo way هاي مرو قف والبو يعني وارك oo salaamayaan ugu dambeyntii wuxuu soo ogaaday inuu xaafad nin asigu eg degan dadkiina ma buu ogaa iska salaamale kiile u maleynooyin wiil dalka Australia u dhashay oo la dhahayo Mark Maho wuxuu galay shilkii wuxuu u geystay inuu galo kooma 2 week ayuu isbitaal ku jiray 2 week kadib markuu koomada uu ku soo baxay wuxuu bilaabay inuu ku hadlo af Shiinees afkii oo ku hadli jiray dhan wuu ilooway English uu ahaa wax ma ka yaqaano Shiinees bas uu ku hadlaa wuuna qoraa nin Shiinees loo keenay oo hadalku u tarjumo wuxuu taagan yahay ani maxaa inta keenay ma buu ogaa inuu shil galay nin la dhax jiray Salvador Dali Salvador wuxuu ahaa artist mar walbana maqaayadaha ayuu ku cuntay jiray lacagna ma bixin jirin shaqaalaha markay u keeneen xaanshada oo lacagtu qoran xaanshadu uu qaban jiray wuxuu ku sawiri jiray oo u celin jiray dadka maqaayadu ku shaqeeyna xaanshada uu sawiro way qaadan jireen darbiyada ay ku dhigsan jireen Pablo Escobar waa ninka toddobaad ugu lacag badan adduunka lacagtaas dhan wuxuu ku keenay daroogada 1980 markii Mareykanka ka dhaxraadinaysay Colombia asii joogay Mareykanka waliba wuxuu hortaagnaa guriga madaxtooyada Mareykanka the White House sawir uu iska qaaday asi iyo wiilkiis sawirkana journalka lagu soo saaray ayaga intay ku raadinooyin asagana intuu joogaa sawirkan muujadiin waxa sawiray nin la dhahayo suk صور ما كان الواح ولا رنجي لواي الواحنا وجدين أو الرنجي وحاسورين لا يرهدو مارك روثو ما أميني هذا كلها صور كان وحلوق قطعي سديتي $4 مليون وليبو حلوق قطعي سوق أو حيابها وقديم كالصور ديجو قفول بالعقو كدرا أنا أنت صن كدرا أنا أنت صن كدرا إلا أي كجارتو سديتي $4 مليون لو تكون اللي طبعا كان اللي هايو كاري كارينجتون وحو كان برميل وين مستانجي وين روب كداي أيو كل ربيهيس لابو ويكدن روبكاس بيهيس أيو استعمالاي دولة مركي أوقاتي وي ماتي وي خبتي حبسي لو حكمي صدن مالن iyo ganaax $500 waxayna ku dhaheen roobka waxa la dawladda Mareykanka dawladda Mexico waxa ka jirto luqad la dhahayo ayabo mise ayabenko luqadaasna waxa ku hadla laba qof bas macnaha dadka luqadaas ku hadlayeen dhan way dhinteen laba qof bas ayaa ku haray labadaasna waa laba duqooshin oo waliba kala xanaaqsan luqadii saasay ku baabaaday intaas aad soo bandhigay maanta waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen share iyo like iyo subscribe ha ilaawin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh